وعندكم حسنتين daawashada barnaamijka waanu iman doonaa wararka bariga dhexe xaaladda oo bariga dhexe laakiin waxaynu ka hormaraynaa dagaalka Suudaan iyadoo dagaalo culus ay socdaan ayaa hadal culus waxa uu ka soo yeeray hogaamiyaha military ee Suudaan General Abdel Fattah al-Burhan waxaanu ku dhawaaqay in ciidamada qalabka sida ay sii wadi doonaan dagaalka ilaa dalka laga nadiifinayo waxa uu ku tilmaamay riyada xun ee ciidamada gurmadka degdega ah ee loo yaqaan RSF iyo kooxaha fallaagada wuxuu carabka ku adkeeyay in hawlgallada military ay ka socdaan jihooyin kala duwan oo dalka ah al-Burhan ayaa hadalkan ka jeediyay munaasabad lagu maamuusayay taliyihii hore ee ciidamada iyo xubno ka tirsan taliska guud isagoo ballan qaaday in si dhow dalka looga ciribtiri doono RSF hadalkiisa ayaa imaanaya isagoo dhawaan isbedelo waaweyn ku sameeyay hoggaanka ciidanka oo ay ku jiraan baabi'inta xilalka ku-xigeenka iyo kaaliyaha taliyaha ciidanka iyo sidoo kale xilka qaadista taliyihii guud ee ciidanka Mohammed Cismaan al-Hussein kaas oo howlgab loo diray waxaa xilkaasi loo magacaabay Yasir al-Atta iyadoo sidoo kalena la dhisay talis cusub oo ay ku jiraan saraakiil kale sida Abdulkhayr Abdullahi Nasir Darjam oo noqday ku-xigeenka taliyaha guud iyo Maxamed Cali Axmed Saabir oo loo magacaabay madaxa sirdoonka militariga al-Burhan ayaa sheegay in ciidamadu ay ka dagaalamayaan dhammaan furimaha isagoo ku eedeeyay dhinacyada taageeraya RSF inay adeegsadaan cadooshada shaqaystayaal iyo taageero shisheeye bishii Abriil Mareykanka ayaa cunaqabatayn saaray 5 shirkadood iyo shakhsiyaad la xiriirinayo qorista askar hore oo ka socota Colombia si ay ugu biiraan RSF isagoo fariin u diraya barakacayaasha iyo qaxootiga al-Burhan wuxuu ballan qaaday in ciidamadu ay gaari doonaan meel kasta oo ay joogaan si loo sugo amniga loona yareeyo dhibaatada wuxuu sidoo kale xusay in dagaalka uu ku socdo dhiigga iyo nafhurinimada shacabka Suudaan tan iyo Abriil 2023 ciidamada Suudaan ayaa dagaal kula jiray RSF dagaalkaasi oo sababay geerida kumanyaal kun oo qof iyo barakaca ku dhawaad 13 milyan oo ruux iyadoo dalku wajahayo mid ka mid ah dhibaatooyinkii bani'aadamtinimo ee ugu ballaarnaa dunida wahagaag bal markana aynu eegno dagaalka Ukraine oo aynu ka gudubno dagaalka Suudaan wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Ukraine ayaa sheegtay in ciidamadooda bishii March ee aynu ka soo gudubnay ay soo rideen in ka badan 33,000 oo dayuuradaha aan duuliyahan lahayn oo ay leeyihiin ciidamada Ruushka waxayna noqotay tani tiradii ugu badneed muddo bil gudaheeda la soo rido tani markii Ruushka uu bilaabay duulaanka ka dhanka Ukraine 4 sano ka hor wasiirka gaashaandhigga Ukraine Mikhailo Fedorov ayaa sheegay in nidaamyada ka hortaga dayuuradaha ay door weyn ka ciyaareen guushan geesta kale diyaaradaha weerarka fog ee Ukraine ayaa markii saddexaad 2 toddobaad gudahood waxay weerar ka geysteen gudaha Ruushka iyagoo duqeeyay warshad sifaysa shidaalka iyo dekad ku taal badda madow gaar ahaan magaalada Tawabse taasi oo keentay in dadka deegaanka laga daadgoreeyo aaggaasi si taxadar ah Ukraine ayaa horumarisay tiknoolajiyad casri ah oo diyaaradaha drone-iska oo lagu tijaabiyay dagaalka taasi oo muhiim u noqotay ka hortagga awoodda military ee Ruushka mas'uuliyiinta ayaa sheegay in awoodda weerarka Ukraine ay si weyn u korortay iyadoo masaafadana ay ka badatay qiyaasihii hore sanadkii 2022 oo dagaalku u qarxay Ukraine waxay duqeyn kartay masaafo gaaraysa 630 kilomitir laakiin hadda waxay garaaci kartaa ilaa iyo 1750 kilomitir taasi u saamaxday in ay beegsadaan xarumaha shidaalka iyo warshadaha lagu taageerayo dagaalka Ruushka ciidamada nidaamka drone-iska ee Ukraine ayaa sheegay in weeraradii hore ee magaalada Tawabse ay burburiyeen 24 haamood oo ah kuwa shidaalka ayna waxay la gaarsiiyeen 4 kale inkastoo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin sheegashooyinkaasi
muuqaalo la sii daayey ayaa muujiyey qiiq madow oo ka kacay goobta iyo shidaal ku daatay waddooyinka. dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa maanta waxay sheegtay in saacadihii lasoo dhaafay ciidankooda difaaca ay soo rideen 186 diyaaradaha droniska oo Ukraine ay ku soo weerartay gobollo kala duwan oo ku yaala xadka, gaar ahaan gobolka Belgrod oo saaran xadka. Wahagaag warkaas halkaas aynu kaga gudubno. markan waxaynu eegaynaa war hadda soo dhacay oo degdeg ah oo dhanka Lubnaan naga soo gaaraya. ururka Xisbullah ayaa hadda war ay soo saareen waxay ku sheegeen inay gubeen 2 taangi oo ah nooca markaafaha oo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin howlgal ay ka fuliyeen magaalada Khantara ee ku taal koonfurta waddankaasi Lubnaan. wixii waraha ay arrimahan ay ku soo kordha intaynu barnaamijka ku jirno ama barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo. waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Mareykanka iyo Iiraan. hadal culus oo ka soo yeeray gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan Trump oo telefoonada caawa kula hadlay Putin iyo Netanyahu. sidoo kale waxaan idin haynaa Erdogan oo muslimiinta caalamka dalab xasaasi ah u jeediyey. muxuu ku aadan yahay dalabkaasi? waan idin faahfaahin doonaa. dhammaan wararkaasi iyo weliba sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka iyo wixii waraha ee soo kordha intaynu barnaamijka ku jirno intaana u gudbin aynu ku hakanno qadar xayeysiina. soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK. si aad u hesho faahfaahin dheeraada una adeegsato adeegga Safari Remit, booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com. haddii aad baxayso cid kale booqanaysiyo markay bilan aroos tahay si laguugu bogo oo bilicdiyo dhalaalka ku qubayso oo badi Perfect Moroccan Soap. haddii aad ku sugan tahay dalka UK iyo Yurubta kaleba waxaa lagu keenay saabuunta Perfect Moroccan Soap oo ah saabuun la isla qiray inay tahay tii sanadka. waa mid organic ah, halkii caag waxaa ku jira 1 kiilo. waxa ay leedahay noocyada olive oil, black caviar oo ah ukunta malayga, argan oil oo caan ku ah dalka Morocco, iyo olive and honey oo la isku daray. haddii maqaarka wejigaaga aad isbeddel ku aragto, xaajiyaduna kaligeed nuura inay kuu noqoto aad doonayso, quruxda gabadhaadana ay gabdhaha kale ku sheekaystaan, ama wiilkaaga maqaarkiisu u ahaado mid u dabacsan sidii yaraantii, waa Perfect Moroccan Soap midda ugu habboon ee jirka intaasoo dhan ka qabtiraysa. haddii aad ku qubaysato Perfect Moroccan Soap xataa uma baahnid saliid, kreem ama wax kale, iyada ayaa jirka ugu filan. haddii aad leedahay ganacsi iyo online business, intaba waa lagugu keenayaa halka aad ku sugan tahay. qiimo macquul ah. kala xiriir Asli General Trading iyo telefoonka shaashadda saar. soo dhawaada markale daawadayaal, wali waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. warbixino qoraal ah, warar, faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa hagaag intaan u gudbin gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan oo war culus soo saaray, waxaynu ka hormaraynaa war degdeg ah oo hadda dhanka Iiraan naga soo gaaraya. wakaaladda wararka ee Tasniim ee laga leeyahay waddanka Iiraan ayaa waxay sheegaysaa caawa israsaasayn inay ka dhacday magaalada Iiraan Shah ee ku taal koonfurta waddanka Iiraan. waxaana lagu soo warramayaa in la dilay 2 maleeshiya halka tiro kalena la dhaawacay kadib markii kooxahaasi hubaysan iska horimaad ay la galeen ciidamada ammaanka ee magaalada lagu magacaabo Iiraan Shah oo ku taal gobolka koonfurta bari ee waddanka Iiraan. wixii waraha arrimahan ay ku soo korna waynu arki doonaa. waa hagaag wararka Iiraan intayna ka bixin, waxaynu ku hormaraynaa warka la xiriira gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan. war culus oo caawa ka soo yeeray isagoo arrimahan ka hadlaya. gudoomiyaha baarlamaanka waddanka Iiraan Maxamed Baaqir Qalibaf ayaa sheegay in cadowga oo uu ula jeedo Mareykanka iyo Israa'iil uu ku guuldaraystay qorshihiisii ahaa inuu afgembiyo nidaamka dalka, isagoo carabka ku adkeeyey in midnimada gudaha ay ahayd sababta ugu weyn ee fashilkaasi. Qalibaf ayaa farta ku fiiqay in cadowgu doonayay inuu Iiraan ka dhigo sida Venezuela oo kale, balse uusan ku guulaysan. wuxuu sidoo kale tilmaamay
in isku dayo lagu doonayo in lagu kiciyo kooxaha gooni-goosadka ee galbeedka Iiraan ay fashilmeen taas oo ku ammaanay ciidamada militariga iyo kuwa ammaanka gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan wuxuu intaasi ku daray in bilowgii dagaalka cadowgu qorsheeyay inuu 3 maalmood gudahood ku rido nidaamka isagoo adeegsanaya dilal lagu beegsanayo hogaamiyaha kacaanka iyo taliyaasha militariga balse qorshahaasi uu fashilmay sidoo kale Qaribaaf ayaa sheegay in cadowgu hadda isku dayayo inuu cadaadis dhaqaale saaro dalka isla markaasna kiciyo kala qaybsanaan gudaha si loo wiiqo awoodda Iiraan ama xitaa loo burburiyo isagoo xusay in Donald Trump uu si cad uga hadlay go'doominta badda Iiraan si loogu qasbo inay is dhiibto iyadoo loo marayo cadaadis dhaqaale iyo kala qaybsanaan gudaha ah Qaribaaf ayaa xusay in xalka kaliya ee lagu hortagi karo waxa uu ku tilmaamay shirqool cusub uu yahay in la ilaaliyo midnimada gudaha isagoo tilmaamay in midnimada muhiimadeedu ay sii kordhiso xaaladahani wuxuu sheegay in tilaabo kasta oo keenta kala qaybsanaan ay toos ugu adeegayso sida uu yiri danaha cadowga waxa kale oo ku nuuxnuuxsaday in dhammaan mas'uuliyiinta Iiraan ay u hoggaansamayaan amarada hogaamiyaha sare Mujtaba Khamenei isla markaasna maamulka dalka lagu wado midnimo buuxda u dhaxaysa dhinacyada militariga iyo siyaasadda ugu dambeyntii Qaribaaf ayaa sheegay in shacabka Iiraan ay fashilin doonaan qorshaha cadowga ee lagu horinayo kala qaybsanaan isla markaasna ay gaari doonaan guul weyn oo dagaalka ah wuxuu sidoo kale adkeeyay muhiimadda ay leedahay isku duubnida qaran isla wararka Iiraan wakaaladda wararka Tasniim ee laga leeyahay wadanka Iiraan ayaa sheegtay in ciidamada sirdoonka ee qaybta ka ah ciidanka kacaanka islaamiga ah ay burburiyeen unug argagixisa oo loo xil saaray inay weeraraan xarumaha dawladda ee ku yaala galbeedka dalka war kale oo arrimahan ay la xiriira madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhigiisa dalka Mareykanka Donald Trump ayaa telefoonka ku wada hadlay caawa sida ay tabisay wakaaladda wararka Ruushka laga leeyahay ee TASS waxay soo xigatay kaaliye u dhow madaxweyne Putin waxaana la sheegay in laga wada hadlay xaaladda Iiraan iyo gobolka Khaliijka wararka ayaa tilmaamaya in wadahadalku uu socday saacad iyo bar isla markaasna Putin uu soo jeediyay fikrado ku saabsan barnaamijka nuclearka Iiraan halka Moscow ay u aragto hawlgal dhanka dhulka oo Mareykanku uu ka fuliyo Iiraan mid halis ah war kale oo arrimahan sidoo kale la xiriira warbaahinta Israa'iil ayaa goor dhaweed waxay baahisay in wadahadal qadka telefoonka caawa ay ku yeesheen ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyagoo isla jeexjeexay xaaladda wadanka Iiraan ila xogaal ah oo wadahadaladan la socda ayaa waxay u sheegeen warbaahinta in intii lagu jiray wadahadalka Trump uu muujiyay inuu danaynayo si wadista go'doominta badda ee lagu hayo Iiraan isagoo aaminsan in labadaasi ay ku qasbi doonto waa sida ay la tahay Iiraan inay is dhiibto oo ay aqbasho shuruudaha la hordhigay warbixinta ayaa sidoo kale waxay tilmaamaysaa in haddii Tehran aysan aqbalin shuruudaha Trump ciidamada Israa'iil iyo kuwa Mareykanka ay diyaar u noqon doonaan inay dib u bilaabaan dagaalka Trump ayaa sidoo kale sheegay inay ka shaqeynayaan sidii looga hortagi lahaa burbur ku yimaada xabajoojinta dagaalka Lebanon inkastoo dagaalku uu socdo wuxuuna ka codsaday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu si taxaddar leh uga hawlgalo Lebanon oo uu soo burburin dhismayaasha si looga ilaaliyo sumcadda Israa'iil waxyeelo inay gaarto wuxuu intaasi ku daray inuu jecel yahay Lebanon iyo hoggaankeeda wasiirada ku yiri balse dhibaatadu ay tahay Xisbullah isagoo ku eedeeyay Iiraan inay burburisay dalkaasi Lebanon wasida madaxweynaha Mareykanka hadalka uu u dhigay dhinaca kale xogayaha dagaalka ee wadanka Mareykanka Pete Hegseth ayaa sheegay in duqeyntii lagu qaaday iskuul ku yaal wadanka Iiraan ay tahay wax laga xumaado waa maalintii koowaad ee dagaalka u bilowday wuxuuna sidoo kale tilmaamay in heshiiska nuclearka ee 2015 uu yahay mid fashilmay Hegseth ayaa waxa uu sheegay in la baari doono weerarka lagu qaaday iskuulkaas oo ay ku dhinteen caruur gaaraysa ilaa iyo 170 u badnaa gabdho watahay sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka intaan u gudbin xagga Ankara aynu eegno iyo hadal weyn oo ka soo yeeray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in muslimiintu ay marayaan marxalad aad u adag isagoo ku baaqay in la iska daayo kala duwanaanshaha qowmiyadeed madhab iyo fikir isla markaasna la adkeeyo midnimada iyo walaaltinimada xilligan adag ee bariga dhexe
Erdogan ayaa hadalkan ka jeediyey khudbad uu u jeediyey xildhibaanada xisbigiisa cadaaladda iyo horumarka ee magaciisa loo soo gaabiyo AKP ee baarlamaanka Turkiga isagoo ka digay in lagu dhaco dabinno ay dhigayaan kuwa doonaya inay hawlgalla ka fuliyaan gobolka taas oo ku tilmaamay khiyaano taariikhi ah mustaqbalka. Erdogan ayaa carabka ku adkeeyey in muslimiinta ay tahay inay iska ilaaliyaan kala qaybsanaanta isagoo yiri sida cidiyaha iyo hilibku aanay u kala go'i karin cidina ma kala dhex gali karto annaga iyo walaalaheen aan 1,000 sano wada deganayn gobolka. Madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale salaamay shacabka Falastiin gaar ahaan kuwa ku tilmaamay geesiyaasha ku dhegan dhulkooda inkastoo ay wajahayaan xadgudubyo cadaalad darro iyo xasuuq iyadoo hay'adaha caalamiga ahna ay aamusan yihiin. Dhanka taariikhda Erdogan wuxuu xusay in sanad guuradii 110aad ee guushii dagaalka Kut ay ka dhacday deegaanka la yiraahdo Kut al-Amara ee koonfurta bari ee Ciraaq intii lagu jiray dagaalkii koowaad ee adduunka uu yahay taariikhdaasi ay tahay weeye mid ka mid ah ilaha lagu faano taariikhda Turkiga. Wuxuu sheegay in guushaas ay meesha ka saarayso sheegashooyinka la sheega ee inay carabtu dhabarka ka toogteen boqortooyadii Cismaaniyiinta xilligaas. Erdogan wuxuu xusay in dadka deegaanka Kut al-Amara ay ka barbar dagaalameen ciidamadii Cismaaniyiinta isagoo taageeray go'doomintii lagu hayay ciidamadii Ingiriiska isla markaasna naftooda u horay buu yiri dagaalka iyagoo taageeraya Cismaaniyiinta. Wuxuu sidoo kale tusaale u qaatay Achami Basha oo ka soo jeeda qoys Carbeed oo caan ah kaas oo badbaadiyay cutub ka tirsan ciidankii Cismaaniyiinta isagoo sidoo kale sheegay in qabiilka Kurdishka iyo kuwa Carbeed oo Shiica ah ay la safnaayeen ciidanka. Erdogan ayaa ku soo gabagabay hadalkiisa in mar kale loo baahan yahay in la muujiyo isku tashiga iyo walaaltinimada Carabta, Turkiga iyo Kurdiyiinta taas oo sheegay in ay tahay in si weyn loo adkeeyo. Qodobkaas ayaa wararka ugu dambeeya laakiin sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay ayaynu haatan u gudbaynaa. Dalka Sacuudiga waxaa lagu soo bandhigay dalad cajiib ah. Daladan waxaa loogu talagalay xujayda. Daladan gacanta ku qaban maysa. Waxaa ku xiranaysaa jirkaaga gaar ahaan xabadka. meeshii marka qorraxda adag oo laga yaabo in xujaydu daalan tahay dalad ay gacanta ku qaban lahaayeen ayaa loo fududeeyay arrinta. daladan xabadka aad ku xiranaysaa weli waxay leedahay kolay yar ama kiish yar oo waxyaalaha muhiimka aad ku ridanayso haddii biyo ay tahay ama daawo iyo wax uun muhiima haddii aad doonayso halkaas inaad ku qaadato. kadibna gacmahaaga waad ku soconaysaa meeshii dalada aad ku qaban lahayd oo laga yaabo gacantu inaad daasho. marka adoo weliba xitaa daladii aan ku xirantay aad tukanaysaa si halkan ka muuqata. marka waxaa loogu talagalay bacdama sanadkan xajka uu ku soo aadayay xilli kulayla ah waddanka Sacuudiga cimiladiis aad u kulushahay ayaa loogu talagalay in xujayda markaa ay adeegsadaan daladan cajiibka ah. waa hagaag inta ayaan ku soo gabagabeynayaa